السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا درس جيني أفراد كتاب كيني تعلم العربية بطريقة سلسة جارهان وحدة دي لبعض 10 كيدي أفراد أكتب كي لبعض 10 كي أفراد قصة ملابس العيد للأطفال قصة قصابسا دار حرشة دارك عيدك يحكى وحل الشيقة أن رجلا وزوجته هوين ايديسي كان وحي أهايين يعيشان كوا كنول مع طفليهما يغي لبدود عرور أحي في بيت صغير قري ير وكان الأب أبوه وحو أها يعمل متكو شغي حمالا مرقمال بو أها وسو حوكستوها أما الأم هو يضمياه فتخيط الثياب مريها أيي تولي جرتي لبعض الناس دادك قاركود دادك وبعضها أيي مريها أتولي جرتي أو خياطة أيي كوشاقين جرتي أو مريا طولك دوار لهايد وتشتري waxay ku iibsan jirtay بثمنها lacagta ay ka hesho dawaarka ما يحتاجونه waxa ay u baahan yihiin ee baahidooda ah ayay ku iibsan jirtay وكانت النقود lacagtu waxay ahayd التي lacagtaas oo يكسبها الأب أبوه soo shaqaysto بالكاد mid ku sigata inay ku filaato على متطلبات الحياة waxyaabaha noloshu ay u baahan tahay lacagta uu aabuhu soo shaqaystaana waxay ku siganasay inay ku filaato waxyaabaha noloshu u baahan tahay ee biilkii reerka ay cuni lahaayeen iyo yaani leerkii kiradii biyihii waxyaabaha noocaas ah mutadalabaat alxayaa waxyaabaha noloshu keensanayso اقتربت العيد عيدي با سو دواتay ولم يكن منay ahayn مع الوالدين لبدا والد معودا may ahayn ما يشتريان به waxay ugu soo iibiyaan لطفليهما labadooda caruura ملابس جديدة dhar cusub labada waalid may haysanin waxa ay labadooda caruura ugu soo iibiyaan dhar cusub sida dadka kale asaagoodiba dhar cusub u xidhanaya وحزن الوالدان labadii waalidood waxay la murugoodeen لحسن طفليهما labadii caruur ahayd murugadooda oo waa sida waalidka lagu yaqaano oo waxa ta'thiriso raad ku reebtay labada waalid caruurtii yareed ba arkaysa aabayaashoodii hooyooyinkood ay u soo iibiyeen dhar cusub oo ku faraxsan iyaguna inaanay haysanin caruurtii yareed markay murugootay labadii waalidna waa murugoodeen marka way la murugoodeen caruurtoodii labadii waalid وفكرت الأم هويدي way fikirtay وفكرت haddana way fikirtay waayo hooyada si naxariis badan sida aawadeed ummuka bu saddex jeer buu nabigu yiri ayaad u ixsaan samaynaysaa deetana markii afraad aabaha marka hooyada ayaa muhiimada leh aabuhuna uu leeyahay hase ahaatee labada waalid ixsaanka waxa ku sii badan hooyada marka qofkii hooyadii nooshahayow ka faa'iideyso oo duca ka reebo aabihii nool yahayow ka faa'iideyso qofkay dhinteena ha ka faa'iideysto oo istighfaarta iyo dambi dhaaf ilaahay ha weydiiyo وفكرت الأم هويدي ويفكرتي وفكرت حتى ويفكرت مر لبعض أي مسكحة توجسي إلى أن وجدت إلى أي هشيبة حلا حل بيها شيء وحيكون مع رئيسه فقد كان لديها حل كتلوه محي وحنا يكون مع رئيسه فقد كان لديها هذا أكتيدة ستائر داهيو من قماش قديم كسميسان dhar مستعمل داهيه hore loo isticmaali jiray فبادرت waxay u degdegtay ila waqtigii ba soo degdegay ciidkii
بادرت waxay u degdegtay biqasiha inay jarjarto wa khiyaatatiha iyo inay tosho oo ay samayso wa sanacat waxay uga samaysay labadii caruur wa sanacat waxay u samaysay minha dharka qumaashka macnaa dharkaas qadiimka ah thawban maray uga samaysay liibnatiha inanteedii mara jilbaab iyo xasaas wa sirwaalan surwaal bay uga samaysay iyo wasatratan dulgashi sare liibnihaa inankeedii qisadu way socotaa dhaash 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 qaybteeda dambe dhammaystirkeedaad la socon doontaan intanna anna jumladaan idiin soo gelinayaa kalimaatun fii jumal kelmado jumlada ku jira kelmadan yuxkaa thaman oo lacagtii ah yuxkaa waxaa la sheegaa thaman oo lacagtii ah nuquud laftirkeedu waa lacagta kaada wuxuu ku sigtay weeyaan mutatallabaat waxyaabaha ay doonayso ay u baahan tahay weeyaan ay dalbaso nolosha tusaalahaan oo kale mutatallabaat alxayaa sataa'ir waa jamcu sitaaratin sitaara waxaa la yidhahdaa daaha jamcooduna waxaa la yidhahdaa sataa'ir qumaash waxaa la yidhahdaa dharka gaar ahaan dharka duuban ee magaranaysaa isku joogyada waxa laga sameeyo biqasihaa waxa weeyaan jarjartay khiyaata waxa weeyaan dhar tolista. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.